بسم الله الرحمن الرحيم حالي أباره تضوضي في دنمو iyo 10 daqiiqo waxaa magaalada Muqdisho ka bilowday roobab xoog leh kaasi oo socday ilaa iyo 4tii subaxnimo ee saaki roobkan ayaa geystay khasaare naf iyo mid hantiyeed inta la og yahay waxaa ku geeriyooday 7 qofood oo 2 ay dumar yihiin waxaa sidoo kale ku dumay ilaa iyo 9 guri oo ku kala yaala degmooyinka magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale guryahooda ay biyo ugu galeen qoysas gaaraya ilaa iyo 200 oo qoys waxaa ku burburay 6 wado oo laami ah oo muhiim u ah isku socodka magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar ayaa tan iyo xalay waxay ku hoolanayeen sidii loogu gurman lahaa dadka iyagu saameynta ku yeeshay roobkii ka da'ayay magaalada Muqdisho waxayna ku guuleysteen inay gurmad u fidiyaan qoysaska ee guryahooda ku dumay iyo kuwa guryahooda ee biyaha ugu galay kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna ee gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud oo ay wehliyaan agaasimayaal ayaa saakay waxa ay kormeer ku tageen qaybo kamid ah wadooyinka waaweyn ee caasimadda magaalada Muqdisho halkaas ay ka socdeen howlo isugu jirta nadiifin ama nadaafad iyo sidoo kale sidii biyaha loogu qaadi lahaa wadooyinka waaweyn oo biyaha roobka ay dhigeen waxaana ilaa iyo hadda lagu guuleystay in la furo wadooyin muhiim ah isku socodka magaalada Muqdisho halka qaarka kalena ay hooshooda ay socdaan oo ay ku hoolan yihiin waaxaha kala gedisan ee howlaha guud nadaafadii bilic soo celinta kuwaasi oo saacadaha soo socda la filayo inay wada dhameystiraan wadooyinka ee saameynta ku yeeshay roobkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho waxaa lagu guuleystay sidoo kale in la maareeyo hanti fara badan oo ay kamid ahaayeen gawaari ay dad shacab lahaayeen kuwaasi oo ku qalibmay wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho waana lagu guuleystay in halkaas laga soo saaro oo kamid ahaa hantidii ay saameynta ku yeeshay roobkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa gurmad degdeg ah la gaarsiiyay qoysaska qaar oo iyagu ka barakacay guryahooda iyo kuwa iyagu nafkartooda ku soo dumay guryaha ay degnaayeen waxaan kaga mahad celinaynaa gudoomiyaasha degmooyinka maamulka gobolka Banaadir iyagoo u hoggaansamaya awaamiirta maamulka sare ee gobolka Banaadir oo ugu horeeyo duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamed Axmed Amiir oo safar shaqo ku maqan tan iyo xalayna ku howlana sidii uu ula socon lahaa xaaladaha ka jira magaalada Muqdisho amarkiisana ay ahayd in loo gargaaro gurmadna loo fidiyo qoysaska taasi oo lagu guuleystay in qoysaska qaar la gaarsiiyo gurmad degdeg ah halka kuwa kalena saacadaha soo socda iyo xilligan idin la hadlayaba ay maamulada ku hoolan yihiin sidii u gaarsiin lahaayeen gurmad madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa booqday xarunta hay'adda Sodma waxayna halkaas warbixin ay kaga dhageysteen madaxda hay'adda Sodma kuwaasi oo soo bandhigay saadaasha hawada iyo roobkii xalay ilaa iyo saaki ka da'ayay magaalada Muqdisho waxayna sheegeen in roobkani uu ahaa mid ku cusub ee magaalada isla markaana dalka ugu dambeysay sanadkii 1989 oo roob noocan oo kala ah uu ka da'ay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo safar shaqo ku maqan ayaa tacsi soo gaarsiiyay qoysaska iyagu waxyeelada ka soo gaaray roobkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho intii dhimatay iyo kuwa dhaawaca soo gaaray iyo qoysaska barakacay oo xanuunka la qaybsanayo sidoo kale waxa uu ballan qaaday in si dhab ah lala xisaabtami doono shirkadaha iyagu dhisay wadooyinka laamiga ah ee burburka uu ka soo gaaray roobkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho guud ahaan maamulka gobolka Banaadir waxay baaq u dirayaan shacabka Soomaaliyeed ganacsatada inta waxsiiyay in ay isku gargaaraan isla markaana ay ka feejignaadaan saadaasha laga bixinayo in labada bari ee soo socota roob uu ka da'i doono magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale maamulku wuxuu ballan qaadayaa in juhdi fara badan uu ku bixin doono sidii markaas magaalada Muqdisho isu socodkeeda iyo nadaafadeedaba dib loo soo celin lahaa saacadaha soo socda aad u mahadsantiin